walaalayaal imarwey salaadiinta jaariyadda Somaliland ee UK xubnaha ka yimid dalalka kale laanta UK siyaasadeedka wadani oo maanta loo walgalayo taageerayaasha ururka wadani saxaafadda fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo basharafta waxaan ku salaamayaa salaam weyn oo qaaliya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaskale mahadoodan markii waxaan mahad celinaya laanta UK ee ururka wadani oo maanta munaasabada lagu marti qaaday dhammaanteen inoo suurta geliyay in halkan isugu nimaadno waxaan leeyahay ka dhigo walaqal farxadeen oo loo duceeyay oo barakooda innaguna argaaga amiin walaalayaal markuu idin mudanayaa teknolojiga casriga ah wixii loo suurta geliyay wixii meel dunida ka mid ah ka dhaca inay midhasiyo warkeeda inagu soo gaaro wararka Somaliland waynu wada haynaa waxa laga yaabaa inaan ku soo kordhin wax warar cusub sumada Somaliland waa nabadgelyadeeduna aad bay u fiican tahay guud ahaan Somaliland farxadda iyo dhaxdintu waa calaamadaha nolosha ay ka mid yihiin marka qaarkood waxa laga yaabaa inaad hesho ama maqasho warkaan bixiya waxaad ka warqabteen in shaqaalooyin ka dhaceen gobolka Sanaag arrintaasi si wanaagsan oo raaligeysay shacbiga wada dega Sanaag ayay ku dhamaatay kadib markii xukuumadda Somaliland dadka deegaanka dega iyo odayaasha dhaqanku si wada jir ah uga howlgaleen waxaa kale oo ka warqabteen in dhacdo foolxumo ka dhacday tuulada Saameel ee u dhaxaysa Barki iyo Gabiile arrintaas waxaa xusid mudan in lagu ammaano shacbiga walaalaha ah ee reer Awdal iyo reer Gabiile uga hawl wada galeen sidii loo nabadayn lahaa oo nabadda caadi lagu soo celin lahaa dadkii falkaa geystayna gacanta lagu soo dhigi lahaa xukuumadda Somaliland door muuqda oo shariif ayay ka qaadatay inay sugto amniga iyo baarista dhacdada foosha walaalayaal mudanayaal iyo marwey waxaa dhowrkii sane ugu dambeeyey ka jirtay Somaliland dood kulul oo ah ma loo baahan yahay in la furo ururo cusub mise saddexdii xisbi qaran uu baa jiraya sanadkii 2011 waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u magacaabay guddi qaran oo arrinta ka soo tala bixisa guddigu waxay soo martay dhammaan gobollada jamhuuriyadda Somaliland waxayna afti ka qaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee shacbiga guddigu waxay warbixintooda ku caddeeyeen in aqlabiyada shacbigu dooratay in ururada la furo iyadoo uu salaynayo doorashada shacabka waa xukuumadda golaha wakiilada soo gudbisay wax ka bedel iyo kaabis in lagu sameeyo xeerka diiwaangelinta ururada ee xeerka number 14 labada gole golaha wakiilada iyo golaha guurtidu waxay ka doodeen wax ka bedelka iyo kaabista xeerka waxayna ansixiyeen madaxweynaha uu saxay sidaas ay ku xalaalowday furashada ururada cusub ururka wadani wuxuu ka mid ahaa ururada cusub ee ka dhashay kadib xalaaleynta furashada ururada shiray hargeysa isugu yimaadeen bishii 15 muwaadiniin ka badan 80 oo reer Somaliland ah lana tashaday ururka la fikirka ah doodeer kadib waxay go'aansadeen inay wada sameeyaan urur siyaasadeed in magaca ururka loogu wanqalo wadani in calanka ururku noqdo orange dhexda kaga taalo wadani oo khad madow ku qoran in astaanta ururku noqoto galay ku taagan caleen milyan
oo cagaar ah dushana laga xadhay in xafladda ku dhawaaqista iyo wadasha ururka lagu sameeyo hotel Mansuur 6 bisha toddobaad 2011 shirweynaha la qabto 9 maalmood gudahood iyo in daraafka xeerka ururka lagu dhammaystiro shirweynaha ka hor waxa uu noqday ururkii ugu horreeyey ee isdiiwaangeliya ururka labada isdiiwaangeliyana wuxuu noqday ururka dalsan ururo kaloo isdiiwaangeliyey way jiraan kuwa ku dhawaaqay oo weli isdiiwaangelina way jiraan sida guddiga diiwaangelinta ururadu ku dhawaaqeen diiwaangelinta ururadu waxay xidhmaysaa 8 bisha 2011 ururka wadani waxa uu booqday dhammaan gobollada waxaanu furay xafiisyadii gobollada waxaanu bilaabay diiwaangelinta taageerayaasha ururka walaalayaal marwooyin iyo mudanayaal Somaliland waa dal muwaadiniintiisu u siman tahay Somaliland cidina waxma dheera cidina kama Somalilandsana waxa taas ka marag ah in 3 muwaadin oo qori urur siyaasadeed ay furan karaan maanta waxa marag doona in muwaadin kasta oo reer Somaliland ah dalka ka noqon karo madaxweyne gobolka doonaba ka yimaado وعلى سبيل مواطن كستار السؤال هذا فرصة هذا وحطب الله روح غاطي إلا ترتمى وياش الديجانك يروح الصبي هي أحسابتي هو يوتر تمام إلى نقضان أحساب قرار وعلى كده امتحان وحق وياش الديجانك كل يسدونه أنت هو عبرتها ديجان كستا وحنا أحساب قرن نقول نونتا وفد كل يستقبل كسا بقول كيف الراتب ترى عضلتك قولنا ضغط إلى هاي قري شعب يوعي أي كوش راعي دونتا وحسن مهمة إنه رضي أحسابته وهو قاستمان حرك عيارته إلى ريال أنا شحبون ينبذ قليلا وإن عندك استويتها إن أنا عندنا حب كل سكري ولا ضياع مرمي يمضى ريال Somaliland waxay dooratay nabad oo ay ka dooratay colaad dagaal iyo khilaaf Somaliland waxay dooratay qarannimo oo ay ka dooratay qoysnimo Somaliland waxay dooratay walaaltinimo iyo wadaninimo Somaliland waxay dooratay horumar ay ka dooratay dib u dhac Somaliland waxay dooratay inay arrimaheeda ku dhamaysato wada hadal wada xaajood isqadarin is-ixtiraam iyo isdulqaadasho Somaliland waxay dooratay nidaam tala wadaag ah dimuqraadi ah oo ay ku dooratay kalitalisnimo iyo dictatornimo intaasoo dhan bay dooratay ilaahay uu ka aqbalay waxaan leeyahay wixii intaasi dhaawacaya aan iska ilaalino ciddii dhaawacaysana aan iska qabanno oo meel uga soo wada jeedno walaalayaal marwooyin iyo mudanayaal Somaliland waxay soo martay marxalado kala duwan oo mid kasta waayaheeda lahayd dhismaha dowladnimo iyo qarannimadu wuxuu ahaa markasta qorisuudhiib oo dhaqaana soo maaha marka wadada leeyahay qoriga isu dhiibaan hadda uu baro taariikhda dhowe Somaliland waxa xusid mudan in dawladii kala dambeeyay Somaliland midba meel soo gaarsiisay ismaha qaranka dawladii ugu horeysay